maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya waxay maanta xukun cadaalad ku fulisay Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan oo ka tirsan kooxda Ugus ee Kisaal Shabaab kaasoo lagu helay dambiyo ay ka mid yihiin inuu ka mid yahay ururkaasi argagixisada Al-Shabaab iyo sidoo kale inuu dilay wariyaal. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan horey waxay dacwad ciqaabeedkiisa markii ay dhageysatay ugu xukuntay dil toogasho laakiin 17 bishii saddexaad ee sanadkan ayuu xukunsanay Xasan Xanafi racfaan ka qaatay xukunkii maxkamadda darajada koowaad 26 bishii saddexaad ee sanadkan ayay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida Soomaaliya u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay racfaan leh Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan waxayna maxkamaddu ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya oo ahaa dil toogasho. Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan ayaa intii ay socotay maxkamadayntiisu waxaa lagu soo ogay dilalka wariyaal Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen allaha u naxariistay agaasimihii idaacaddii Capital Voice Mahad Axmed Cilmi, agaasimihii idaacadda Hoon Afrika Cali Imaan Sharmaake, agaasimihii ku xigay isla idaacaddaasi Hoon Afrika Saciid Taliil Axmed, tifaftirihii wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona Sheekh Nuur Maxamed Abkey, agaasimihii idaacadda Shabeelle Mukhtaar Maxamed Hiraabe. waxayna maxkamaddu dhageysatay marag furka markhaatiyaal ku furaya Xasan Xanafi dambiga uu galay iyadoo Xasan Xanafi lafahantiisu uu qirtay dilalka wariyaal ay ka mid yihiin tifaftirihii wakaaladda wararka Soomaaliyeed Sheekh Nuur Maxamed Abkey. ugu dambayntiina maanta ayaa fagaaraha cadaaladda ee dugsiga sare ee booliska generaalka ay maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya kula fulisay xukunkaasi toogashada Xasan Xanafi iyadoo fulinta xukunkaasi ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin ka mid ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya gaashaanle dhexe Xasan Cali Nuur Shuute xogayaha koowaad ee dowladda hoose ee Muqdisho iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Jajab ee gobolka Banaadir. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay toogashadaasi dadweyne iyaguna daawanayay sida xukunkaasi cadaaladda loo fulinayay. gaashaanle dhexe Cabdullaahi Xuseen ku-xigeenka xeeraryaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa fulinta xukunkaasi toogashada kadib la hadlay saxaafadda. maalintii ay taariikhdu ahayd 3 bishii saddexaad 2016 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan 28 jir ah ina Maryan Saalim Cumar ku dhashay Xamar kaasoo xafiiska xeerlaainta guud ee ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab gaar ahaan qaybta qaabilsan dilalka saxafiyiinta asagoo qorsheeyay dilal loo geystay saxafiyiin fara badan isla markaana taariikhdu markay ahayd 4 bishii shanaad 2010 gacantiisa ku dilay marxuum Sheekh Nuur Maxamed Abkey oo tifaftirihii wakaaladda wararka Soona ahaa waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. taariikhdu markii ay ahayd 17 bishii saddexaad 2016 waxaa xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida racfaan ka qaatay xukunsanaha. maalintii ay taariikhdu ahayd 26 bishii saddexaad 2016 waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay racfaan leh Xasan Xanafi Xaaji Cabdisalaan waxayna ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo ahaa dil toogasho ah waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii Sheekh Nuur Maxamed Abkey. maanta oo ay taariikhdu tahay 11 bishii afraad 2016 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka toogashada ahaa. wabillahi tawfiiq. agaasimaha idaacadda kulmiye ee Muqdisho Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo isaguna ku hadlaya magaca warbaahinta Soomaaliya ayaa isna halkaasi ka yiri kelmado ku aadan toogashada Xasan Xanafi. maanta ilaahay ayaa ku mahadsan Xasan Xanafi annagoo u jeedna ayaa la mariyay waajibkii uu mudnaay oo laga gooyey xaqdarradii uu ka galay dad badan oo u badan bahda saxaafadda. waxaan aad uga xunnahay kuwa aan maqli doonno ayagoo cambaaraynaya dilka ama ka maanta la toogtay ama kuwii doraad la toogtay oo intaba bahda saxaafadda ay gacmahooda ku maqan tahay
kuwa cambaaraynaya ayaa la arki doonaa saacadaha soo socda waxaan leenahay kuwaas